salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudanow waa mar kale iyo barnaamijkeeni waxbarashada oo aad toddobaadkiiba hal mar kala socotaan stuudiyaha Kalson TV ee magaalada Nairobi. barnaamijkeena waxbarashada aalaaba waxaan idinka soo diyaarinaa xarunta waxbarashada caafimaadka ee Tawakal Medical Clinic oo ah xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii ee Soomaalida. xaruntan ayaa waxaa lagu wacyigeliyaa dhalinyarada Soomaaliyeed. toddobaadkana waxaad ku daawan doontaan maxaa looga baahan yahay aabaha wanaagsan. waa maxayse waajib intee leeg ayaa looga baahan yahay aabaha wanaagsan inuu ka qaato qoyskiisa iyo sidoo kale ilmaha uu dhalay. barnaamijkana waxaa idin daadihin doona anigoo Cabdixakiin Siciid Maxamed. haddii aan u fiirino Soomaalideena anaga danahay dad Soomaaliya dadkeena Soomaaliyeed raggu ma gutaan mas'uuliyadda laga rabo. waxaan ka hadlayo oo mas'uuliyadda aan saaraya ma ahan maanta tan dhanka hooyada ma ahan ee waxaan saaraya mas'uuliyadda aan sheegay waxa waaye cunuga la dhalay xuquuq intee ah ayuu kugu leeyahay hadaa aabba tahay mise gudataa aabba hadaa tahay xuquuqda uu kugu leeyahay cunugaaga inta uu ka rabo. waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeyso inaan su'aal weydiiyo dadka oo idil su'aashaas oo marka ugu horeyso aan dhihi doono waa number 1 su'aasha aan weydiinayo waxaan rabaa inaan ka dhigo aabbuhu ma qaybsamaa. tusaale ahaan aabbo wanaagsan iyo aabbo xun aabbuhu ma u qaybsamaa. hadday haa tahay yaa inoogu jawaabaya yaa la dhihi karaa waa aabbo wanaagsan yaa la dhihi karaa waa aabbo aan wanaagsanayn. su-aasha aabbuhu ma qaybsamaa dabcan aabbuhu waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa mid xun iyo mid wanaagsan. kan wanaagsan wuxuu noqon karaa aabbaha yaqaana mas-uuliyadda ka saaran ilmihiisa iyo reerkiisa waxa asaga uu mas-uulka markaas ka yahay. xunna waa midka aan aqoonin responsibility-ga markaas asaga uu ku leeyahay ama reerka markaas asaga uu mas'uulka u yahay ee ilmaha iyo xaaskiisa iyo wixii markaas la mid ah. Burhaan Cabdi Xaashi aad u mahadsan tahay. Burhaan wuxuu noo sheegay aabayaashu inay dhowr yihiin ay qaybsamaan ee sumid ahayn. aabbo wanaagsanna uu jiro aabbo aan wanaagsaneenna inuu jiro. waxaan rabnaa marka inaan ogaano maadaama la yiri aabayaasha qaar baa wanaagsan aabayaasha qaarna ma wanaagsano. haddaba waxay dadka qaar ay leeyihiin cunugu uma baahna waxaas wuxuu u baahan yahay aabihiisa inuu ka helo wax loo yaqaano aabanimo. aan daawano cunugaasi aabbaha wuxuu ku dayay hadduu hurdahaysa inuu hurdisiyo soo maahan muusan hurdin. aabbihii aaba soo baxay sariirtii yareed ee cunuga uu lahaa ee asiga ay deeqin buu la dhaxgalay. maxay noqon doontaa marka? laga dareemay aabihii inuu dhaqdhaqaaqo isku dayay inuu baxayo intee looga seexday bar way hadeer bal hadduu isku dayo inuu dhaqaaqo maxaa lagu sameyn doonaa? mukula tahay aabaha inuu markaan baxsan karo ma baxsan karo. waxa la rabay ma ahan hooyo ma ahan caano ma ahan wax kale waxa la raadinaya waxa waaye in laga helo waxa loo yaqaano aabanimo. qof waliba markaad aaba noqoto waxa laga rabaa inaad muujiso aabanimada heerka ay tahay. wiilku wuxuu raadinaya wixii ahayd waxa loo yaqaano aabanimo. mas'uuliyadda aabaha saaran markii cunug ku dhashay waa mid hadda daawanaysa ee mid ka sii weyn oo ka saddex jibaaran. cunuga waxyaabo fara badan buu u baahan yahay markuu dhasho. hadduu waalidkiisa ka helin waxay danta ku qasbaysaa markaasi inuu wiilkii ama gabadha ha ahaadee cunugii yaraa uu naco qofka aabihiisa ah uusan qiimeenin ee qiimeynta uu siiya dhanka hooyada. mar waliba inuu u janjeero dhanka hooyada. qofba wuxuu ku leeyahay wiilkayga aniga ima jeclo. haddii asiga uu diyaarin lahaa wadadii lagu jeclaan lahaa lagama yaabeen cunugaasi asigana inuu naco. cunugan hadda aad aragtay aabihiisa dhabtiisa inuu ku seexdo bartay aabihiisa dhubtiisa markuu joogo inuusan ka dhaqaaqin markuu ooyada intaas oo kale dhabta lagu seexiyo bartay ma kula tahay inuu aabihiisa ilaabayo? ma ilaabayo. meel fiican buu ugu yaalaa aad buu u qiimeynayaa aabihiisa aabanimadu inuu gutiyo dareemayaa waayo aabbaha intuu meel taagnaaday sida ay sameeyaan inta badan
dadkoo dhan ma dhahayo dad wanaagsan baa jira laakiin dadka badankiisa siday sameeyaan markaan eegno Soomaali ahaan waxa waaye hadduu ooyo laba in baa noo cad war cunuga uu baahan yahay wax sii caana u baahan yahay amaba naasi in hooyada la dhaw haddii kalena hooyadiisoo rabaa hooyada caawa kaale qaba cunugaaga laakiin cunuga labadaa keliya uma baahnay wuxuu u baahan yahay waxa loo yaqaano aabe inuu arko bartana dareemana aabanimada waxa ay tahay waxa uu raadinaya aabanimo iyo magaca aabe kaliya mu raadinaya ma raadinaya wuxuu raadinayaa cunuga tusaale iska soo qaad adoo socda saaxiibkaana kula socdo ama saaxiibadaada kula socota haddii aad meel yar ku tiraantirooto ama aad dhacdo ama aad dhagax dhulka ku dhufsato saaxiibka intuu ku istaago hadduu ku yiraahdo waa ka xumahay saaxiib dhib male iska istaag iyo hadduu intuu soo ordo dhabarka gacanta kaa saaro amaba gacanta ku qabto ku yiraahdo alla istaag teebaa naxariis badan markuu gacanta ku saaro garabka kaa qabto soo maaha ilmaha yarna waxay u baahan yihiin waxa aabbaha la yiraahdo inay dareemaano hagsiiyo oo hagsiiyo oo ku qabto xabadka oo ku qabto dhabta uu dareemo markuu rabaado inuu ciyaarana dhabtiisa uu ku ciyaaro markuu rabaado inuu hurdana dhabtiisa uu ku hurdo ee uma baahna hooyo oo kaliya waxaan u soo jeedinay waa aniga iga bilow iyo inta kale ee aabba noqon doonta iyo inta ahba waxaana looga baahan yahay waa in afalkaas sameeyno haddaba si aan ujeedkaas meeshana looga rabo aan u gudano waxaan soo qaaday wax loo yaqaano amaba wax aan ku qiyaasay saan u arkayo 6 step amaba 6 talaabo haddii aan sameynana ay noqon doonto in wadadii aabbanimo laga soo baxay ugu horeyn aan fiirino maxaa ugu horeeyo be present waa inaad guriga joogtaa ayaa la yidhi joogistuma in shaqada aan kasoo tago guriga aan taagnaadaa saas lagama hadlayo meesha waxaa ku qoran ciyaalkaagu ma danaynayaan mana siinayaan xikmad haddii aad kambaniga aad ka helayso lacag fara badan ama kambanigaaga lacag badan ay soo gasho ma fiirinayo wiilkaaga baloodka ugu wanaagsan ama ugu qiimaha badan ayaan aniga leeyahay in hebelna waa leedahaa cunuga yareed adigu dhashay ma qiimeynayo waxaas wuxuu qiimeynayo ee danta iyo dadka waxa dhan ugu dan ah isaga waxa weeyaan xilliga lunchka timeka haddii la gaaro amaba sabama xilliga haddii la gaaro qadada aan dhaho amaba cashada la gaaro amaba xilliga quraacda saddexda time ee wax la cunaahay ee guriga laga cunaahay mid ka mid ah waayo bilaadan baa taa shaqeynaysaa odayga shaqa loo diray mid ka mid ah hadduu guriga kugu helo oona kula qadeeyo amaba kula quraacdo amaba kula casheeyo be present la sheegay waa taas waxay u noqonaysaa xusuus usan weligiisa ilaabin wuxuuna garanayaa hadduu weliba wiil yahay nin rag inuu yahay marka la qadeynayna ay wanaagsan tahay in ragga lala qadeeyo wax lala qadeeyana aabbaha inuu ugu wanaagsan yahay inay tahay markaasuu dareemayaa hadduu arko amaba cashada xilligeeda markii la joogo ilaan cashada shaqa lama jiro inta badan sidii loo badan yahay xilliga cashada markii la gaaro aabbihii oo guriga joogo oo guriga ka casheynaya markuu arko waa qaybta koowaad number 2 isla ayadii soo qaad once a week amase once a month bishii mar isu day gabadha aad banaanka markaad joogtay baa dhihi jirta waa ku jeclaa wallah waan kuu dhimanayay markay guriga kuu soo gashayna waryaa bariiska ma karis hadaada karinna wax kaloo la waday ma laha dhihina bishii mar isku day inaad maqaayo u qaadid ayar iyo cunugeedii aad geysid meel maqaayad ah oo aad ka soo siisid waxyaaba aad loo xiiseeyo tusaalehaan haddaan soo qaado bitsa la qiimeeyaan qiyaasaya bitsadaasoo kale ama wax kaloo casho muhiim ah oo wiilka xusuus u noqoto ama gabadha yareed dhashay xusuus u noqon karta waa bishiiba mar haddaad awoodo labadii bilood mar haddii aad tahay dadka qaarkiis sida maan oo kalena isbuuciiba mar ka dhig maan waa awoodaa isbuuciiba mar ka dhig si fiican ma lii faham be presentiga waa noocaas qaybtaas hadduu kaa arko wiilka waxaa laga yaabaa inta uu nool yahay aabbihiisa inuu xasuus dheer uu ku reebo waa qaybta koowaad qaybta labaad maxay noqonaysaa qaybta labaad waxay noqonaysaa iyadana waa qaybta hadda soo socoto be there for a milestone guriga ha iska joogin ee waxaad ku joogtaa milestone ahaw istoriyadan si fiican u fiiri hooyada xitaa mararka qaaraa laga rabaa haddii lagaa waayahay qiimo ma liid laakiin inta badan waa aabba waxaan ka hadlayo milestone maxaa la dhahaa maalinka ugu horeysa ee dugsiga la geynayo waa maalinta ugu horeyso ama waa maalinka ugu horeysa ee iskuulka la geynayo hadhihin hooyada shaqan aadee cunuga iskuul bar maanta iskuul geey hadhihin isku day waa maalinta ugu horeysa waxbarashada uu aadaya inaad adiga gacanta qabatid oo geysid haddaad tahay aabe you will be maxaa noqon doontaa good father aabbo wanaagsan ma ka hadlaya aabbo noqo keliya ee maxaa waay aabbo wanaagsan inaad noqoto haddaad doonaysid oo cunugaaga qiimeyn iyo qadarin oo ku siiyo
ma intaas kaliyan ku ekeeyaa may haddana waxaad fiirisaa maalinka qalinjibinta uu sameynaya primaryga nurseryga ha ahaado secondaryga universityga collegeka maalmaha qalinjibinta uu cunuga sameynayo waa inaad meesha joogtaa oo adiga gacanta aad ka qabataa waayo markii meesha la wada yimaado badankeena waa soo qalinjibinay rag baa aabbahooda iyo waalidiintooda soo raacaan weliba aabbaha soo raacaa markuu soo raaco macallimiintu waxay qiimeynayaan wiilka aabihiisa uu jooga inta badan si fiican u fiiriya haddii hooyooyinka ay joogaan waxaa leeyahay hooyooyin badan oo kasoo qayb galay laakiin aabbaha hadduu joogo inta badan haddii 3 aabba ay joogto 2 ka mid waxaa lagu qasbayaa inay hadlaan oo istaagaan soomaad arkin noqon marka maalintuu qalin jibinaya aabbihii meesha istaagay ee hadlay wuxuu ku arkayaa dhalinyarada meesha joogtahay oo dhan ninka ugu aabbo wanaagsan inuu yahay waayo aabihiisa xafladda qalin jibinta ka hadlay waxayna u noqonaysaa xasuus aad u wanaagsan waa yahay teach your child cunugaaga waxaad bartaa the important lesson cunug guriga iskala joogin cunna ma cunta iyo shaati guduud ma ku soo galaa ciid way hadheen hee casharada ugu muhiimsan caalamka bar maxaa ka mid ah xilligii hore rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi xilligoodii waxaa jiri jiray farday dadka lahayn jireen soo meeheen waxaad bartaa sida fardaha loo fuulo waay wiilkan bari hadduu geesi dhalay noqdo ee nin dagaalamaya dagaalyahan oo noqdo amaba nin fardaha ku fiican amaba tartamada ku fiican hadduu noqdo yow soo xasuusanaya aabe ayaa i baray sida loo fuulo fardaha iyadoo ordaysan aan ka degaya iyadoo ordaysan fuulaya ku dhahaya ee ma dhahay anigaa bartay milestone u noqo marka ka soo suko casirkan bar good lesson ka waxaasa ka mid ah waa laga soo gudbi macallin wixii hore iyo fardo malahan maxaa la sameynayaa sida gaariga loo kaxeeya bar cunugaaga waxaad bartaa sida baaskiilka loo fuulo cashir wanaagsan bar cunugaaga soo u noqdo cunug meel fiican ka soo baxay very nice intaas miyaan ku ekeeyaa may develop strong communication waxaad horumarisaa xiriir adiga iyo cunuga idin dhexeeya maxaan horumarinayaa cunugii adiga xiriir idin dhexeeya horumari maxaa la mid ah weydii aabba iskuulka ma aaday haa maxaad ka soo faa'iiday maanta aabba maxaad baratay aabba aayadee maraysaa aabba meel heble ma gaartay aabba wiilka ugu khatarsan wiilasha baa tahay aabba hee saaka saan u baxay kuma arkin haddaan imaaday aabba see tahay wuxuu dareemayaa aabihiisa mar walibaahay inuu ka fakerayo aabihiisa mar walibaahay inuu laabta ku hayo aabihiisa markuu shaqada ku maqan yahay xataa inuu asiga ka fakerayo aan ka soo qaadnay xagga waxbarashada aabbaha 90% wuxuu jecel yahay wiilkiisa inuu dhakhtar noqdo meel kale ma la fiirinayo ama wax kale noqdaa wax gaaraa lama dhahayo dhakhtar waa inaad noqotaa aabbo aabba nin dhakhtar ma rabo waxaan rabaa pilot inaan noqdo pilot maxaa kugu dar diyaaradda dhacdo ma rabo waxaas ayga dhimanin ee dhakhtar noqo wuxuu niyadiisa ku faraxsanay ma haysto iskuulka ama jaamacadda uu ka soo baxay wuxuu ku soo baxayaa wax la qasbay uusan raalli ka ahayn asoo baranay soo ma jeedid waa la isku dhacaa marka inta badan aan ka soo tagna qaybtaas marka waxaa sameysaa xiriir sameey communication adag adiga iyo wiilkaaga horumarina maalinba maalinta ka dambeyso waa ka gudbay qaybta kale war wax walba waa la sameeyaaye hee balangarey trip inaad u sameyso familkaaga once a week once a year meel dheer haddaan kaaga soo qaadin oo meel dhow aan kaaga soo qaado twice a year sanadkii 2 iidood ma leenahay mise ma lihiin ya haddaa dhihi laheyd ani meel kale waqti umahay iyo waa shaqeeya iyo qabababac 2 iidood ma leenahay oo fursada leeyahay oo shaqo kasta laga soo tegayo try 2 iidood wiilashaada ama ilmahaaga yaryariiska wiil iyo gabarba midku yahay maadaama aabihi aad tahay macal familkiyo idilhee u try garee inaad geysid hee trip meelo dalxiis ah haddaada meel bad aada joogin meelo doog iyo waxaas iyo leh sheekh mustafa muxuu yidhi ninka magaalada joogaahina waxa u cad alla meel doog leh qudaar maxaa wax cagaaran ay ka baxeen yaa ku tusa oo yaa ku geeya oo baabuurka aad ka tagtid oo meeshaas aad ku soo socsocotid kan baadiyaha joon wuxuu leeyahay guri cad iyo gaari cad iyo kursi cad yaa kugu fariisiya nin walba qaybta ka maqana oo khatarsan marka qaybta aad haysatid maahan oo wiilka uu dhex joogay qayb uusan dhex joogin geey haddii guri intaad ka wadid fridge market oo kale aad geysid maxaa geys guriga ka wada guriga geys interest badan ma siinayo laakiin meel doog leh biyo dhaca leh wax soo biyo meel ka soo dhaadhacayo fiyooryaal ubax leh meel la maraya leh la istaago la isku sabir hadaa gees ka war meeshu ay ugu bedelan tahay Soomaa noocaas oo kale insha Allah balangarey hadii Ilaahay oo ku ogolaado oo wiil ku siiyo ama gabar Ilaahay ku siiyaba ma intaas ku ekeysaa hadaa intaas ku ekeyso wala qayb baa ka maqan make a time for yourself naftaadana time u yeel waa mid ugu dambeysay mid baa ka dambaysa naftaada maxaa la yiri
time u yeel oo tusaale ahaan sameey time ah adiga laftirkaada qur-aanka akhrisanaysid cunuga markuu guriga soo kaco wuxuu arkayaa aabbo oo qur-aan akhrisanayo adoo buug akhrinaya time ah hadduu arko aabiis journaal sidoo kale akhrinaya waaga markuu beriyo soo kaco indhaha saas leeleyahay ha arko aabihiisa oo allamiinta sameynaya 20 minutes at least wuxuu dareemayaa nolosha noocyadan oo dhan inay ka mid tahay aabihiisana nin dadaal badan uu yahay lagu daydana aabihiisa uu mudan yahay mar waliba ayna maxay isku dadaya wiilka inuu sameeyo sida aabihiisu sameeyey haddii kale muxuu sameynayaa wuxuu fiirsanayaa filimka maxaa la dhihi jiray ciyaaraha adduunka uu fiirsanayaa hadduu arko ciyaaryahan dhex bartamaha xiirtay ee intii internet ku leh muxuu sameynayaa kii uu qaadanaya sababtoo qofuu ku daydo uu waaye aabihiisana waxba uguma daydo aabihiis wuxuu ugu daydaa guri markii limaad in la seexdo su-aasha ugu horeeya aan weydiinaya waxaa waaye wiilashan weydiinaya iyo gabdhaha oo isku jiro waa kuma aabbaha ugu wanaagsan ee lagu dayan karo erayo kooban oo muhiim ah oo dadkoo dhan ay qaadan karaan waxaan rabaa hal gabar oo ka jawaabta iyo hal wiil oo ka jawaaba aabbaha wanaagsan aniga waxaan u arkaa kan mas-uuliyadda kooda faastir reerkiisa ka soo baxo second aabbaha mas-uulka ma ahan guriga uu markaas aabaha ka yahay xaaskiisii ilmihiisa oo kaliya wuxuu mas-uul ka yahay hooyo aabo walaal qaraabo qof walba uu arka xataa inay wax ka qaldan yihiin inuu noloshiisii wax ka sixi karo aabaha wanaagsan waa kan mar walba familkiisa ka warqabo ilmihiisa ka warqabo sidoo macallinka hore usoo sheegay aabaha wanaagsan waa kan naxariista badan oo mar walba dareemi karo hooyada ilmaha u dhashay xataa haddii uu ka xiisay inuusan xaqeeda ka tegin qatro liibaan warsame aada u mahadsan tahay waxaan u mahad celinaynaa waalidkii kusoo barbaariyey wiilasha haye magacaygu waa cabdifataax xasan maxamed ra'yi ahaanteeda haddaan dhaho inkastoo bani aadamku ay kale ra'yi duwan yihiin aabbaha wanaagsan waa kan had iyo jeer og waxaa ka maqan reerkiisa waa kan garab istaago had iyo jeer reerkiisa waa kan ka fikiro had iyo jeer horumarka reerkiisa waa kan ka fikiro ubadku uu dhalay siduu ku gaarsiin lahaa heer ama meel sare socdaan loo dhalay 6 saamood ma dhaafo ayay dhahdaa Soomaalida inaad dhahdo muxuu ahaa aabbo wanaagsan aho wiilkayga waxaan siinayaa wuxuu doonayo inuu ku farxo kabacdina ayaan ka baad ka cajista loon baan waxa loo baahan inta noloshada ka dhiman sidoo kugu daydo sababtoo ah hadii aad tahay aabbo wanaagsan asagana wiilkaad barbaaranayso wuxuu noqon doonaa aabbo wanaagsan oo anfaco ubadku dhalo maanta waxa laba qayb aan ka hadli doonaa qofka markuu wax jecel yahay xaaladdu ku sugan yahay iyo markuu uu jaceelkiisa dhamaado ama qofku jaceelka ka dhaxeeyeen si waxa uga bixi karo haduu dhib ku dhaco koos waa ognahay qofku markuu heart blockade noqdo ama qalbi jabo haduu wax jeclaan jiray dhib la soo darsay soo marka qaabku uga bixi karo hadii dhib la soo darso haduu dhib la soo darsin alxamdulillah marka hore jacayl sida ogtiin dhamaantiinaba laakiin waxa waaye waxyaabo bini'aadamka inta badan ka dhaxeeyo haday tahay jacayl hooyo u qabtid mid oo walaalka u qabtid ama mid ashay u qabtid marka jacaylku wuxuu u baxaa 3 qaybood oo kala saaray according to me waa ani according to me so maaha meel kale kama soo qorin marka 3 qaybood waxa waaye jacayl qof bini'aadan u qabtid wax nool ah laakiin wax agtaada joogo oo arkaysid qof arkaysa noqdo ama waalidka ha noqdo ama qof aan noloshaada ku ribta noqdo waa midkaas waaye mid kale baad waxa waa jacayl shay u qabtid laakiin haday tahay dharkana jecelahay ama cuntadana jecelahay it's something wax nool ma laakiin waa wax jiro mid saddexaad waxa waa jacayl asagna qof u qabtid nool laakiin aadan aqoon laakiin dadka qaar waxay jecel yihiin fanaaniin qof aysan aqoonin oo la iskala sheekaysto wuxuu yahay ogeyn soo marka qof aadan arkin waa qayb kale asigana oo san ku dhaweyn like a distance mid ah alxamdulillah horta jacaylka waxa waxyaabaha ugu badan bini'aadamka hadda like youthka dhalinyarada waxyaabaha dhibka badan ka haysto marka dhahano qofka muxuu ku sugan yahay markuu wax jeclaanayo it's similar waxyaabo waxa jira isaga egyihiin dadka markay wax jecel yihiin ku sugan yihiin waxa rabaa inaa idin dulmaro qodobada qofka markuu wax jecel yahay marka horeeto is not like inuu og yahay wuxuu u jecel yahay ma ogo badana qof og waxa u jecelahay iyo maxaan ku doorto qof dhahay ma jiro qof walba wuxuu iska leeyahay qofkan waa iska jecelahay yani qof daba raacay ma jiro maxaan ku jecelahay maxaan ka rabaa nolosheeda everything nolosheeda uga baahnaa miyuu qofkan haysta qof isdhahay mala marka common things oo dadka wax jecel lagu yaqaan waxa kamida waxay leeyihiin wax la dhaho intimacy dadka qaar markay wax jecel yihiin way cabsadaan cabsadaasna maaha waxay ka cabsanayaan qofka ma weysa camal hada ama qof jeceshahay
markuu xanaaqa ma wax sameeyo wadnaha ku boodboodaysa ma marka qofkaas ma oga baqaysid wuu ku dilaa ma oga baqays laakiin waxaa jiro dareen ah qofkan ma weeni kartaa noloshada hadaa ka weys maxaa kugu dhici karo cabsidaas qof kastana inta badan dadka badanaa way qabaan koska laguma xisaabtama inta badan inuu qofkan la weeni karo haddii lagu xisaabtami lahaa maba laga baqi lahaynba midda labaad oo dadka ka dhexeys waxaa qofku wuu ku farxaa qofkii kasoo horbaxay wuu farxaya qofka maanta u shidanta wax ka qasan male markuu qofku jecla arko laakiin marka kaleeto ka xirxirantaha magaalo oomada ku kacsan asida midda saddexaad waxa waaye qofku wuxuu isku dayaa inuu soo jiidiso sameey laakiin hadduu ballan leeyahay qofkii uu jeclaa ballan leeyahay muxuu sameeynaa ma ahan adigina meel kuugu qoran tahay soo jiido meesha laakiin waxaa jiro qof dadka dhan ka dhexeey ay sameeyaan inuu qofka si fiican isku qurxiiso labisto hadduu koofi xiran jirin koofi soo xirto waxyaabo badan uu isku soo dardara si uu soo jiito qofkan laakiin asaa wuxuu iska dhigaa isqurxinaa qofkii soo jiidasho u sameeyo qaybta afraad waxa waaye tan waxay ku dhacaa qofka markuu qofka ku xanaaqsan yahay ama qofka jeceshaa kugu xanaaqsan ma hurdays oo dhan waa soo jeedaysa ama wax ku mashquul adana hurdada kaa tagayso waa waxa dadka dhan ka dhexeeya waa ayadana qaybta shanaad waxa waaye qofkii haddaa isku soo dhacdeen lacala qof is jeceshiin waa isku soo dhacdeen markaa isku soo dhacdeen xanaaqa meesha imaanaya waa xanaaqsan tahay waxaa lagu dareemayaa dadka ma oga waxa u xanaaqsan tahay inaa waxaa laga qof kan sameynin inaa ku kacdid ama wax ku samaysid laakiin ma ogid adiga waxa u xanaaqsan tahay qofkaas soo muranteen as jeclaadeen soo marka xanaaqas dadka dhan uu ka dhaxeeya inay dadka kale ku xanaaqaan markay qof is jecelin soo murmaan mid kale waxaa jirto hopeless la dhahay badanaa waxaa qabo qaybta addictionka qayb waxaa jirto jecelka laakiin psychology marka ka hadleen waxaa loo aqoonsan inuu mental illness jirooyinka dadka waalwaanan lagu tiri serious mental illness ay dhahaan which means inuu qofkii hadduu ka badbato wixii uu yani uu too much noqdo wax walba too much waa wax xun samahan anything too much is really poison oo la dhahaa samaha so marka qofkaas waxa waaye psychology-ga waxay u aaminsan yihiin inuu mental illness ka mid yahay sababtoo ah qofkii wuu ku waalanaa waxaana rabaa wax kale ma yeelaayo maxaa lamid qaybta kale waxa waaye jacaylku wuxuu leeyahay qayb la dhahaayo addiction like daroogada maxaa u naqaanaa inay leedahay qofka inuu qabatimaayo uusa ka maarmeen markuu helo farxadu hela markuu waayo hurdo la-aana ku dhacays as well as qofka addictionka ku noqdaa jacaylka asigana xaaladaas isku mid maraya marka soo ha u maal jacaylka naftirkiisa waa qayb ka mid a drug abuse-ka ku diri karaa I think isku mid waa marka isku xaaladay marayaan qofkan hadduu daroogo isticmaalo hadduu maanta daroogadii wix cabashiishada caaw farxada hela ku leeyahay qofkan laakiin qofku jecel hadduu helo asiga farxada hela ku leeyahay the same thing laba isku jiday marayaan waxaa jiro maxaa la dhahaa qofka markuu wax jeclaanayo qofka iskama warhayo laakiin waxaa jiro neuroscience waxa la dhahayo neuroscience waxa waaye maskaxdaada waxa ku jiro chemical badan oo qofka oo jirkiisa soo deynaa markuu soo deeyo uu dareenkaas uu kacaa zaid u kacaa laakiin waxaa kamid markaa faraxsan tahay markaa xanaaqsan tahay markii qofkii waxa laga sheegaa soo boodaysa xanaaqaysid oo aan la taaban karin qofkaas camal minis waxaa jiro dhacaamaas jirkaaga ku jiro we don't remember rabbigana abuur inta badan ama xasuusano laakiin waxa laga yaabaa qofka jeceshay markaas xanas qofka ugu dambeeya ka fikiraysa inuu asiga yahay markaas soo kacay qofka ugu hore maskaxda ku soo dhacay inuu asiga yahay midda labaad waxa waaye don't rethink your decision micnaheedu waxa waaye tan go'aanka hadda adiga lahayd qofkaas uga tagtay ka fikiri maanta dhan go'aankaaga inuu qaldanayo because sababtii markaas qofkaas uga tagtay meesha wax weyn kula ahayd oo uga tagtay samaha laakiin hadda maanta dhan ka fikirtid wixii xukun noqonaya wax yiriisa adana waa kaas iska dhaadhicinaysaa Allah ana qofkaas ka gardarnaa laakiin markii xaaladda taagan tahay qofka diraysid afasiix leedahay nabadgelyo adhaysid markaas xaaladda qiimeynteeda hadda ka fikirtid maanta dhan go'aanka qaadatay micnaheedu waxa adigu ku qaldaaya wuxuu kaaga dhigaa wax micno leh marka dambe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إلهي هدويد ما وحا كتابان دونا وحلي إلى مفاتيح العشرة للنجاح طبعا شيء وقفك هدي لغاهل قوش أو قاري طبعا شيء واحد جرت قفك هدي لغاهل قوش أو قاري هدفك لها يوحو كفكري كل أو قاري قفك بنعمك الله رب العالمين وحسي وحيا فربضان وكسوعي وحا كمدا إنه إلهي بري بيان علمه البيان وحي قلبي سكجر إنه دتك كدعين كرو إنه فكر كيس دتك كجدي كرو إنه دتك التوجيهين كرو وهو إلهي إنسان ككم النيسي
qof walbeeto annaga naga mida wuxuu qabaa aamaal yididiil iyo wax buu tiigsanaya mid baa raba inuu baylood noqdo mid baa raba inuu dhakhtar noqdo mid baa doonaya inuu noqdo business weyn iyo sharikaad inuu furto qof walba qalbiga waxbaa ugu jiro qof walba wuxuu leeyahay hadafka waxaan ula jeedaa taargad uu leeyahay waxbuu tiigsanayaa maxaa keena guusha maxaa najaax keena guusha goormee gacantaada soo gelaysaa buug uu qoray ninkii la oran jiray ibraahim alfiqi waa nin masaari ah wuxuu muxaadara ama lagja ka ah maraykanka buugaag fara badan buu qoray buuggiisa koowaad haddaan hayo 10 shay ee lagu guulaysto dad badan baa wax isku dayay wayna fashilmeen maxaa koosgaray inaad fashilanto hadafkaada maxaad u gaari laadahay hadafkaada maxaad u gaari laadahay 10 shay ee lagu guulaysto waxaa qayb ka ah الثقة بالنفس قف وين وطاقة قف والبطاقة كجرت أودا كجرت قف ولا ما دام أود ولا وحال ربع الثقة بالنفس إنه سكوك السوية وين الأمين سنتها هنا سكوك السنتها قلبي وين كان جرت وحال إن القبان كرته وأديول كيس جاري كرته قف كأودي سوى إنه أجي وين سكوك السوية هذا كار واحد عضي لباح يرى يجري لباح يريس يجري libaaxi yaraa wuxuu soo dhaxgalay riyo fara badan oo daaqay libaaxi wuxuu la qabsaday riyaha libaaxi qalbiga wuxuu gashtay inuu yahay rii ka mid ah riyaha daaqaya waa la weynaaday soodkiisa xataa libaaxi waa isbedelay libaaxi codkii lagu yaqaano kuma dhawaaqayo macaa uu leeyahay libaaxi wuxuu qalbiga gashtay inuu yahay ri waa la weynaaday waa la daaqaa cooskuu la cunaa wuxuu ka mid noqday qalbiga gashtay inuu ri yahay maalinka dambe waxa yimid libaax dool ay yimid libaaxi doolka wuxuu u yimid inuu riyahan wax ka cuno riyihii way carareen libaaxi yaraa riyihii daba kacay libaaxi weyna waa yaabay wuxuu la yaabay libaaxan yar oo daba ordaya riyaha riyihii ma eryana wuxuu ku fakiray libaaxan maxaa ku dhacay libaaxi soo qabtay wuxuu ka dhaadhicin waayey libaaxata wuu ka dhaadhicin waayey inuu ka dhaadhiciyo wuxuu u maray wasiilo ugu sheegay inuu libaax yahay wuxuu yiri biyahaasaan tagaynaa biyaha markaan tagno waan isfiirinaynaa biyuhu ila waa muraayadoo kale sax ani adiga hadda isku ekaano hadda riwatiida ogow libaaxa taa u yiri waxba kama qabu yiri waa waday wuxuu geeyay biyihii ayuu dul geeyay markuu biyihii dul geeyay way isfiiriyeen libaaxi yaraa wuxuu arkay suuradiisa iyo muuqaalkiisu inuu libaaxan u ogay inuu libaax yahay codkii waa hore iloobay maxaa meesha ku dhaaf libaaxnimo codkiisa u soo laabtay awalan athiqa binafsi qofka waa inuu isku kalsoon yahay haddaad isku kalsoonayn wax walba awood walba kugu jirta kama faa'iideysan kartid haddaadan isku kalsoonaynna inaad kalsooni abuurato inaad samaysato tusaale hebel horumar u gaaray ku dayso waa inaad samaysataa waxaad qofaad ku daysato waxyaabaha guusha keena hadafka lagu gaarayo ama najaaxa lagu gaarayo waxa kamid ah mahaara kamid ah shayga inaad aqoontiisa u leedahay waa inaad xirfadiisa leedahay mahaaradu waxay ku gaarsiinaysaa guushii ku gaarsiinaysaa hadda ka hor waxaa dhacday nin la oran jiray Jim Rohn wuxuu soo guuriyey waxaa halaaway markab ayaa halaabay ninkii kabtanka wax walba ayuu isku dayay inuu markabka hagaajiyo wax walba ayuu kaashaday laakiin wax walba uu sameeyay markabka uu hagaajin waayay wax walba isku dayay inuu hagaajiyo nin kamid ah dadkii saarnaa markabkii wuxuu yiri aniga hagaajinaya ma awoodi kartaa waan awoodi karaa markabka hagaajiyo ninkii kabtanka waa yaabay way awoodiisa dhan uu ku bixiyay inuu markabka hagaajiyo waa hagaajin waayay mid baa yiri rakaabka kamid aniga hagaajinayo wax weynba ma samaynin meeshii uu fiiriyey si fiican uu fiiriyey wuxuu la soo baxay qalab yar waa gargaraacay wax yar uu sameeyay waa hagaajiyay dhowr garaacu meesha ku dhuftay mar walba waa dhageysanay markuu hagaajiyay waqti yar ee markabka hagaagay wuxuu yiri waxaan u baahanay lacag intaas leeg warqada u dhiibay lacagtay ku qoran tahay
waxaa ku qoran $1,000 u baahana warqadii uu fiiriyey 10 daqiiqa noo shaqeynaysa wiil $1,000 say ku rabtaa 10 daqiiqa noo shaqeynaysa wuxuu yiri waxaan ku rabaa mahaaradeedii aqoonteedii aqoontu wax weyn baa lagu gaaraa guul hadaa rabto inaad gaarto waa inaad wadadeedii leedahay qof walba naga mid ah hadaf Soomaaliya qof walba hadaf uu leeyahay ahdaaftu maahan aakhira inuu xisaabsanaatay kaliya qof walba hadaf uu leeyahay sax dhalinyaro muxuu ahaa lagu soo qaatay hadafkooda ka run sheegay innahum fidyatun aamanuu birabbihim qolayga asxaabul kahfi maxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliya innahum fidya aamanuu birabbihim ibraahim markuu dacwo u istaagay quraanka wuxuu ku tilmaamay samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim hadafkeena waan gaari karnaa aan ka run sheegno haddaad dacfi kugu jiraan iska dhaadhici inaa daciifayn maalin walba dheh anaa qaadir anaa astadiic ani waxbaan awoodaa waxbaan qaban kara iska dhaadhici dadka adiga kula midka ah ibtikaar bay la yimaadeen dadka adiga kula midka ah waxbay soo kordhiyeen adigana noloshada wax ku soo kordhi dadkana noloshada wax ku soo kordhi arrinka diyaar ma una inaan hadafkeena ka run sheegno wadadan u mari lahayn aan saxno waa 10 shay oo lagu guuleysanayo laba qaybood ka mid ah aan dadaalna barakallahu fiikum wajazaakum allahu khayran barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin siciid maxamed dhanka kaamarada waa saaxiibkay cabdicasiis uma nadaara tan iyo inta aynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaynu idinkaga teganaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu